saylka xiga wuxuu leeyahay shanaad waa qof waxaan filayaa dumar ahoo sheeko xanuun badan bay ka soo sheekaysay laakiin su-aal bay ku gabagabaysay. qofkani waxay leedahay waxaanahay hooyo 37 jirta 5 sano ka hor ayaan allah u towbad keenay. intii ka horeysayna waxaan ahaa qof aanan soomin salaadin balse muslim ah. muddo laga joogo 15 sano ayaan waxaan meher la'aan ku dhalay gabar. habeenkii aan dhalay subaxii xigtayna waxaan siiyey naag caddaan ah oo faransiis ah, aniga oo reerkayga ka baqaya. hadda gabadha garan maayo halka ay ku dambayso, diinta ay qaadatay, xataa nolol iyo geerina midna kuma ogi. ee sidaan uga towbad keenaa arrinkaasi? tan salaadda iyo soonkana maxaan ka yeelaa? runtii qisadu dee masalada dadku waxaa laga yaabaa ilmahaas dabcan hooyaad u tahay oo sharci kuma dhalan, wuxuusan raacin nasabka iyo abtirka aabbihii sidaa xun kaga dhalay ma raaco. laakiin hooyadii sidaa ku dhashay ilmaheedii bay ahaydo markii horena dee ilmuhu xiriirkaas inay samaysay dembi iyo xaaraan buu ahaa. markii labaadna ilmaha inay xoortoy gacan kala geliso arrin xaaraan iyo dembi ahayd. hadda towbadeedu dee waa inay ilaahayna dembi dhaaf weydiisato, camalka khayrka iyo saalixaadka iyo xasanaadkana ay ku dadaasho. qofaad gacan u gelisay ee qof la dilay oo mu'min oo xakawdiisa la gooyey baa towbada ilaahay aqbalaa. wax ka sii weyn oo gaalnimo iyo shirkiga ilaahay towbadeeda aqbalaa. qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calىa anfusihim laa taqnaطuu min raxmat اllah ina allaha yakfir الdunuuba jamiica inahu huwa algafuur الraxiim. ilahay dunuubtoo dhan waa dhaafaa. waxaan rajaynaynaa haddii qofkaasi khayrkana ay badiso, dembigana iska ilaaliso, ilaahayna dembi dhaaf weydiisato, in wixii ka dhaca ilaahay ka dhaafaan rajaynaynaa. masalada soonka iyo salaada asalku inay qadaysaa lagu leeyahay, waayo soonka iyo salaada hadday qirsanayd ka tegitaankoodu sida jamhuuru ahlilcilmi iyo fuqahadu u badan yihiin, anigana ila saxsan, waa macaasi iyo dunuub ee diinka baxaya gaalnimo ma ah. saas darteed waana dayn rabbi ku leeyahay subxaanahu wa tacaala, fa dayn ullahi xaqu bilqadaa'i waayo. salaadda wakhtigeedu tagana waajibkeedu kuma dhaco. waxaana uu daliila qofkii halmaan iyo hurdo ay kaga tagtay dembi buusan lahayn, laakiin qofka ka suga tegay waxay wadaagaan in wakhtigeedii baxay oo salaaddu wakhtigeedii ay ka daahday, wakhtigii loogu talagalayna dhammaaday isagoon qofku tukanin. halkaana waxaa ka garatay salaaddu tukashada inaad tukataay shardi ma aha, qasabna ma aha in wakhtigeedii jooge. hadduu wakhtigeedii dhammaado ama dembi ha ku raaco ama yaanu ku raacine dee in qoortaada saaran wey. hadday xilligay 5 sano ka hor towbad keentay 37na jirta, macnaheedu 32 jir bay ku towbad keentay. salaadaha ayna tukanin xisaab qiyaasoo dhoweyna way samayn kartaa, intay kari kartaa ha dadaasho. wixii dadaalkeeda ka batan ilaahay dembi dhaaf ha weydiisato. ilahina subxana wa tacaala iyadii iyo annagii iyo dadka muslimiintaaba dembi dhaaf baan uga baryaynaan u weydiinaynaa.